Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa mar kale iyo walaalkiina Mascuud. Laba shay inaadan ilaawin ayaa kuu fiican. Tan ugu horeysa waxa weeyaan keligaaga markaad tahay inaad fakirkaaga ka warhayso. Fakir baa kugu soo dhacayo, mid hore fakir cusub baad ku beddelaysaa. Waa xilli aad dagaal kula jirto fikrado kala duwan oo isugu jira kuwa qalafsan oo shaydaan iyo naf hoggaan ay u yihiin, iyo fikrado kale oo wanaagsan kuwaasoo markaad ka dhabayso aad ku barwaaqoobayso. Erayada aad ku dhawaajinayso inaad ka fiirsato waa lambarka labaade. Mararka qaar hal eray oo qaldan wuxuu ka halis badnaan karaa hubka ugu casrisan oo qarnigan la heli karo. Qofka afku dhiiglaha ah erayga qaldan walaal kale ku dhahay si fudud ayuu ku iloobi karaa, laakiin saameynta iyo waxyeelada qofka la waxyeeleeyey nabar iyo ciil ayay ku noqonaysaa. Beddelkeeda, hadal mise erayo wanaagsan aad ku hadasho waxay abuuri kartaa jacayl, isu soo dhowaansho, rajo iyo bulsho badqabta. Waxaan ku soo gabagabeynayaa xadiidkii xabiibkeena Nabi Muxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee: ittaqillaah xaythumaa kunt. Meel kastood ku sugan tahay, Rabbiga adiga ku uuntay, ku simay, kuu suurageliyey maanta adigoo caafimaad qaba inaad hurdada ka soo toosto. Ka yaab oo ka baqo. Wa atbici sayyi'ata alxasana tamxuhaa. Xumaan kastood samayso wanaag raaci. Wa khaaliqi innaas bikhuluqin xasana. Dadkana dabci wanaag kula dhaqan. ittaqillaah xaythumaa kunt waa xiriirka adiga Ilaahay kaala dhexeeyo inaad hagaajiso. Wa atbici sayyi'ata alxasana, nafsadaadii adiga xiriirka kaala dhexeeyo oo xumaan haddaad ku dhacdo ha fogaaninee dib u soo noqo. Wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasana waxay noqonaysaa xiriirka dadka kaala dhexeeyo inuu noqdo mid qurxoon, wanaagsan. Idil ahaantiinba guuleysta ayaan idin leeyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.